halkan waa saldhigga booliiska degmada Baardheere waxaana ka muuqda burbur baaxsan mana helin wax dayactir ah oo dhameystiran muddo 30 sano ah kadib burburkii dawladii dhexe ee Soomaaliya iyadoo qolalka ay ku xiran yihiin dadka eedeysanayaasha ah ayna adag tahay in qof bini'aadin ah uu ku noolaado si aan wax badan uga ogaano dayaca ka muuqda saldhigga degmada Baardheere ayaa waxaan u kurgalnay sida uu ku shaqeeyo saldhigga burbursan waxaana halkaasi kula kulannay taliyaha saldhigga degmada Baardheere Maxamed Ismaan Xuseen oo ku magac dheer Misirey wuxuuna dalka TV uga warbixiyay sida ay ugu shaqeynayaan saldhiggan burbursan waxaan halkan ka cadeynayaa dayaca ka muuqda saldhigga Baardheere markuu waxaan codsanayna dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo u sareeyay madaxweynaha Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre inay arkaan dhibaatada ka taagan ee dayaca iyo burburka ka taagan saldhigga Baardheere maadaama uu yahay saldhigga dhexe ilaa ay gaal shir dhamaantood asagoo suu yahay dadka waxa halka ka cadeynaa inaan hayno dad gacan ku dhiglaale iyo tuuga dadka kufsana kufsiga geysanaya dacwooyin kala iska fudud waxaan codsanaynaa saldhigga Baardheere oo ahaa muraayadii degmada Baardheere waa inuu yahay saan hadda arkaysaan dhibaatada islaacan ka muuqdo oo dawladii dhaxay la dhaxdan wax dayactir aysan helin markii laga reebo wax yar oo maamulka degmada ay sameeyeen xafiisyar yar oo aan leenahay naftirkooda qalab iyo qalab xafiisyada midna aan lahayn waxa kale oo jira deegaankan aad arkaysaan halkan baahadiisa halkan leeg gobolka Gedo waa degmada Baardheere waa degmada ugu weyn waa gobolkan Gedo ma lahan xabsi kala ma lahan xabsi dhaxa ma lahan gaal shir ma lahan waa se kaligiisa soo gaal shir xabsi dhaxa hase midkaan gacanta ku hayno waaye waad u muuqataan dayac iyo rafaad ka muuqdo wax lagu qabanayo ma dad maxabiis meel lagu xir karo ma lahan wax xafiis oo shaqeynaya ma lahan waxaan codsanaynaa dawladda Soomaaliya ka codsanaynaa inay xafiisyadaan ay saldhigga ay noo dayactiraan waa saldhigga degmada booliis degmada saldhigga Baardheere waaye ciidamada booliiska ay ku shaqeyn lahaayeen dadka gacan ku dhiglaasha meel lagu xirayo ma lahan dadka tuugada meel aan ku xirna ma lahan dadka kufsiga geysanaya meel lagu xirayo ma lahan wax kale iska dhaafay aswaalidiinka aan haynin meel aan ku xirno saldhiggan waxaan gacanta ku haynaa ilaa 2015 ilaa maanta 2020 kan gacanta ku haynaa bishii 7 bishii 7 23 bishii 7 2015 Baardheere la qabtay ilaa abtinaadan gacanta ku haynaa wax dayactir aan helin ma lahan hay'adana ka haysta ma lahan wax hay'adoo ilaa deertan aragna ma lahan buugaag ma ku diyaarna computer ma bahaysana waxna siiyana ma aragad wax qalab xafiisad bixiin ma jiraan buugaag ma ku diyaar registrana waa buug oo dokumentiga ay isticmaalaan buugaag ma ku isticmaalna waxa ugu dambeeya waxa codsanayna dawladda federaalka Soomaaliya inay xafiis saldhigga ay noo qalabayso aan loo dayactiro iyo hay'adaha shaqada khaaska iska leh teeda kale hadda waxaan codsanaynaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan inuu shaqadan waxaan saldhiggan wax ka qabto ilgaar oo ku fiirado Ilaahay sidoo kale taliyaha dambi baarista degmada Baardheere Cabdi Gohaad Maxamuud Macalin oo aan kula kulannay saldhigga booliiska ayaan wax ka weydiinay baahiyaha gaarka ah ay qabaan wuxuuna baaq u diray dawladda federaalka Soomaaliya halkan waa saldhigga Baardheere oo barbar badan ka muuqdo wixii barbara waxa horta ka hadlay taliyaha saldhigga aniga oo ku xigeenka ah ahna madaxa baarista taliska dhexe ee booliska waxa naga soo gaaray labada buug baari oo oobiga bas iyo taliyihii qaybta Maxamuud Yare Cornel Maxamuud Yare wuxuu noo keenay kuraas miskan iyo computerkii oo qayb ka maqan meeshan taarkii oo qayb ah taliska dhexe waxba kama aanan helin gacan ku dhiglaha wuxuu ku xiran yahay saldhigga xabsina ma lahan katiinado waxaan ka haysanaa tan oo dawladdii aabihii ummadda Soomaaliyeed Maxamed Siyaad Barre waagii uu madaxweynaha ahaa katiinadooyinkii la keenay waa kan aabihii ummadda Soomaaliyeed Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistee wax ka dambeeya oo qalab ah oo la keenay ma jiro anagu waxaan nahay dad ku soo qaatay tababar boolis muddo badan ka shaqeynayay wax xuquuq kuma leeyin booliska wax xuquuq kuma leeyin warbixintanada iyo tababarkayga iyo aqoontayada iyo waxaan nahay waxaan u dhiibnay taliye xiraalinta guud maxkamadda iyo gudoomiyaha maxkamadda baan u dhiibnay waxaan ka codsanaynaa xuquuq inaan ka helo qaybta booliska كو مدة لبعض أسكرت شوكت قارنا وحقوق لان قارنا حقوق مله 5 سنة وشغالين
waxaan ku shaqaynaynaa frontry dalkayga meeshuu marayo baan ku qanacsanahay in halgan loogu jiro waagi xaquuq leh askariga xaquuq hela ama sarkaalkii hela waa nasiibkii kaan helin inuu cadaalad u shaqeeyaan rabnaa inuu u shaqeeyaan rabnaa Soomaalinimo dalka Soomaaliya cadawga haysta waa ognahay waxaan codsanaynaa kow katiinado ma haysano direys ma haysano tab computer ma haysano taarkii warbixinta aan ku gudbin lahayn war subaxeedka subax walba taliska guud ma haysano intaba inaan helaan codsanayna taliyihii qaybta Maxamuud asaga oo qalabkiina kala dhameystiray hal bedeli gaadiid ma haysano aan ugu shaqeyno ummadda Soomaaliyeed baar dheere waa meesha ugu faraha badan dalka Soomaaliya degmooyinka ugu weyn ku jirta 400 oo tuulo baa hoos timaada dad 150 kun oo qof ku nool oo central ah oo ummadii Soomaaliyeed oo dhan ay ku dhantahay maay iyo maxaa tiri oo Soomaaliyeed ka koobanta waxa ka kooban tahay maay iyo maxaa tiri waxa weeyaan gaadiid ma haysano computer ma haysano taarkii ma haysano gaadiidkii dress dhameystiran ma haysano xaquuq ma haysano inta waxaan ka codsanaynaa taliyaha booliska amaan iyo ku xigeenka agaasimaha booliska hoggaanka ciidanka kasaadka ka maamulka lacagta dhammaan waxaan ka rabnaa inay si gaar ah ay baar dheer u tixgeliyaan qalabkeena loogu soo dhiibaan Maxamed Deeq Cabdi Cali Alfa dalka TV baar dheere